hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera taasi oo ay taageerayaal aad u tiro badan oo luxayay calanka astaanta oo xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay kaga hortageen kantaroolka galbeed ee magaalada Berbera halkaas oo ay ka soo galbiyeen kuna soo wareejiyeen magaalada Berbera ujeedada socdaalka wafdigan ayaa waxa uu daaran yahay soo dhaweyn taageerayaal tiro badan oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani kana soo baxay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye waxaana taageerayaashaasi horkacayay Cali Axmed Kooshin oo ahaa aasaasayaashii xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee gobolka Saaxil iyo waliba Cawil Cali Sugule waxaana taageerayaashaasi xisbiga wadani kala hor hadleen wafdigu xafiiska uu xisbigaasi ku leeyahay magaalada Berbera ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo kamid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada isagoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeedada socdaalka wafdiga maadaama uu maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku joogay magaalada Berbera iyo saara halgan oo ah xubnaha sarsare ee xisbiga wadani waxaana kamid ah hadalladoodii sidan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا من ولاته. سلام يا من ولاته. سلام يا من ولاته. سحر كاين نبحه. سحر كاين نبحه. نسمات كاين نبحه. عدالة عتماته. كرجل هنورته. 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 وحنا يعي ما يعرف عرض أبينا وحنا غير أبا. هنا تلاقي سعيد. سلام يتوجه بالرجال. مرة قوم سيتوبان لي أبنا تعالى. أنت ما تروح جنابي. ما تروح جنابي. ما تروح جنابي. صاحي الناس ستا صاحي. واحد ستا أميجني. واحد ستا بدنيهني. واحد ستا غير صاحب ستا ملعون الصاحي لما ستا. واحد من ده أنت هلك حولك صوب بحال. هيا واحد من كي ما دام واحد السادة تلو دعنايا كي ما دبت ودبت بشرع ماشي شرعي سومينان عضي إلا إنه معاملته حق معها شرعي قان سوحو بغا يا قفل أوي ما تمدحوينه ورأي ما دبين شرعي قان إنه معامله وحويا روحا كحاران تميسان إن دادك قريوه الله دعو شرعي قان ما أقلا شرعي قان عصر الكلمية يوجد شابتك نصاب بحين وحلانك شابتك العليا يا maya aarariyada iyaga soo diraya waxa weeyaan waa ciidan loogu talagalay argagixisada marka anigu waxaan idin leeyahay horta ciidanka inoo ilaaliya because kuwa ay meelka ku joognaa waa iyagayaan inaga iyo idinka la iska kii horkeenin asalamu ilbaha gacbalagu arsada kala oday lagu noqdaa lagu dhaqa waxa loo qabtaa laha lagu hayaa ducada waa la iibsadaa qofkii amrada abuurtu haday xaq tahay ilayska kuwii shidaa abalkaan ku hayaa abuurkaan intii qashow inta kalena waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaasha ku soo biiray xisbigani waxaana kamid ah hadalladoodii sidan marka xigta waxaan cadaynayaa maanta inaan si rasmi ah ugu biiray xisbiga wadani anoo ka soo diirrugtay baydinkaa sheegi misaaraa sheega xisbiga kulmiye 8 sanaad mucaarid ka soo ahaa Berbera ka hadlaayay qofkii ugu dhibaatada badnaa waxay maalin walba la xiri jiray ee bilayska isku wareejin jiray ee wadooyinka loo jiri jiray xukuumadii udubay xiri jirtay ee haddana aan marna mabdigiisa ka laabanaynin mucaaridkuna haddaad aragto xukuumad xidha amba waxaga juglaysa amba istiraahda عبولي واحد معارض كوكرة وهو ما شاء الله وساك كشاقة إنا قصوا بيري حسبنا وطني هانتلا يديه يقول قال سنايد بلنو سياسة يديه ووقت بريها يقبربرين ونحنا شيء أنا قاعد صوشة قيستي مالها سيكا إلى هدان بريها يسيبو يديه خليج كان ترون هو يربا صوشة قيستي هدهين التاجر مو هين دير بربروية غن هو يلين التاجرات ما هين أنا صوشة قيستي كنك هيفية
انت هدينا حرنا وحراشية gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidan ayada aan gurmad dadkooda iyo dadkoodina u gurmadaan oo ay u gurmadaan si nabadgelyaha oo ay u gurmadaan gacantooda iyo codkooda oo ay wadada toosan mariyaan mutarii Soomaaliland u qalooday cidii aynu dooranay waa la habowday waxaa la martay meel aynaanu jiranayo wuxuu dawadii ma sidaa markii aan xisbiga ururkaba ka fufaytaan xisbiga noqon waxay berberitadu u baahan tahay dawadii waa ludii sidaa dawadu waxa weeye berbero midaysan madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorashay waa la qabanaya komisha kii ugu dambeeyeyo waa la diiday doorashada ayaa qabanaya haddaa marka waxaan leenahay qolada xukuumaddii xisbiga kulmiye سياسة مدحوينها بطريقة معي هل الفريق ورشوني على هذا التوصي إذا ذلك اليوم عين يوتك وعين بلد قصيري في قرارك يورجيس كدولته يدوم لي هذا مركا شورنا الله ما جيو أموريه اللي يدور خلوه سميه حقي لقيه ma aha markii ugu horeysay ay ku biiraan xisbiga wadani taageerayaal tiro badan balse waxa ay tani ka horeysay qaar ka tirsan ardayda jaamacadaha Berbera oo si mid loogu biiray Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera